wardegdeg ah ra'iisul wasaaraha waqtigiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta safar degdeg ah waxa uu ku gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug halkaas oo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa daaran arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha Galmudug iyo sidoo kale madaxda filla Soomaaliya ugu horeeya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula wadaagi doonaa qodobada muhiimka ah ee ra'iisul wasaare Xamse ku qasbay inuu Dhuusamareeb tagay iyo dadaaladii dhexdhexaadinta ee Mahad Salaad uu waday halkii ay ku dambeeyeen soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibaatay hore inoo la joogtay waad ku maasan tahay haddii aad nala joogin nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu halkan markasta kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga mudooyinkii ugu dambeeyay waxa khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhexdhexaadin uu waday Mahad Salaad taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa Dhuusamareeb ayaa u muuqatay in hadda markaasi laga gaaray heshiisyo hordhacay iyo sidoo kale isfaham ku aadan arrimaha doorashooyinka ee Galmudug ra'iisul wasaaraha waqtigiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta isagana gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana socdaalka ra'iisul wasaaraha uu daaran yahay arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa dadaaladii dhexdhexaadinta ee laga dhaxwaday Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ra'iisul wasaare Xamse ayaa inta uu ku sugan yahay Dhuusamareeb waxa uu markaasi ka qayb gali doonaa kulamo dhexdhexaadina oo u dhaxeeya Axmed Qorqor iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wakiilo ka socda ugu horeeya Mahad Salaad waxa si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug oo ugu horeeya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo saraakiil ciidan ra'iisul wasaare Xamse ayaa la filayaa inuu markaasi uu gabagabada heshiis rasmi ah oo markaasi dhaxmara Qorqor iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu goobjoog ka noqdo iyadoo xogo hoose oo aynu helayno ay tilmaamayaan in madaxweynaha Galmudug la doonayo in lagu qanciyo inuu ka tanaasulo musharaxnimada xisbiga JSB sidoo kale guud ahaanba musharaxnimada dowlad goboleedka Galmudug isla markaana uu tanaasulo musharaxa ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya xisbiga JSB ka sharaxan ee Liibaan Axmed Cali oo ku magac dheer Liibaan Shuluqo hadaba waxa si weyn isha loogu hayaa dadaalada dhexdhexaadinta ee u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor taasoo maalmihii ugu dambeeyay ahayd xaalad cakiran iyo khilaaf markaasi labadan shakhsi si weyn uga dhaxeeyay guud ahaan wixii ka soo kordha wararkii warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibaatay hore inoo la joogtay waad ku maasantahay haddii aad nala joogin ilmaamin inaad bartan ku soo biirto oo aad soo follow garayso bogan